بروفيسور علي خليف قليل hogaamiyaha Khaatumo oo habeenkii xalay ahaa ka hadlayay xaflad dood cilmiyeed oo ka dhacday magaalada Burco ayaa mar kale waxa uu ka warbixiyay halka ay marayaan wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Khaatumo isagoo oo sheegay inay wali ku hawlan yihiin sidii loo hirgelin lahaa heshiiskii ka dhacay magaalada Caynaba ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Khaatumo Professor Ali Khaliif Galad oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri waayadana waa maqlayseen qolyo Khaatumo iyo qolyo guddi Soomaaliland oo wasaaradda u badan yaa wada hadal u socdeen arrimo culusna waa ka wada hadlaynay arrimahaasuna qaar aanu heshiis ku gaadhnayna waaba jiraan oo laga yaabo kulay inaad warkaas ama balafaydu ku soo gaadho October 2017 aanu ku saxeexnay Caynaba yaa jiray oo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud uu saxeexay anaan saxeexay baarlamaankuna uu ansixiyay hadaba inaku waxaan dimuqraadiyadeena iyo xukunkeenuna waaba inagu cusub yahay waaba laga yaabaa haddii hawshaasu saa u dhacday oo madaxweyne saxeexay oo baarlamaanku uu ansixiyay in loo qaadanayo automatically inay wixii sidii ku noqonayaan hadda waliba waa xisbigii kulmiyay labaduba labada madaxweynaba ma dhicin waxay markaa noqotay haddana hawshaasu hawl culusna waa tahay geelna Soomaalidu waxaa tidii loogama hadho marka waxa dhabtu tahayna waxa weeye marmar bay siyaasaddu ogaasa kalbay marmar gashaa bal marka siyaalo kale oo wax lagu xalliyo waa in la raadiyaa waxaan si arma tabliiq siyaasi oo wax soo kordhin kara oo dadka shacabka Somaliland oo arrimahan khusayso armay fiicnaan lahayd inay warbuuxa ka hayaan Professor Ali Khaliif Galad hogaamiyaha Khaatumo waxa uu xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay inay fiiro gaar ah u yeeshaan heshiiskii dhexmaray Khaatumo iyo Soomaaliland anigu calay ahaan mansab aan Soomaaliland iyo anywhere in Somalia in the world ka rabaa ma dhaqaale aan ka rabaa ma laakiin waxa ay muuqata Somaliland iyo leadership kan maanta jooga Somaliland haddayan ka fiirsan arrimaha gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn qaarkeeda iyo Boorame darafyada haddaan laga fiirsan war waxaynu xamar nidhaaho waa ula doodaynaa oo laynaga dhagaysanaya ma jirto waana la laayay Soomaha war Somaliland waana laysay qabaa'il iyo ciidamayna laayeen oo hubkii Somaliland magaalooyinka ay ku soo galeen war annakaanba ku haysan maxaad noo layseen annaka rabna Somaliland dantayada ka aragna meel kale aanu ku dooranaynaana ma jirto haddii se ay dhag u jalqin waayaan xitaa anigu haddaanba iska dhoofo oo iska tacabiro af Ingiriisiga waxa la yiraahaa fikir ama ra'yi waqtigiisii yimi wax is hortaagi kara ma jiro waa ogaay fulaxanti ma mooga cidda oranaysa oo Cali Khaliif horta yuu wataa dhulbahantaba lama socdee war waa been war fikirka dadkaasu rabaan waxa weeye Somaliland iyo reer Sheekh Saxaab marti uma noqonayno ama waxbaanu wada yeelanaynaa ama waxba ismaynayno waa Bashiir Xaaji Ibrahim Home Cable TV Burco